aan ku bilownay saaxiibayaal sidaan idinkugu sheegay hordhaca wararka Garaa TV ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan qaybta 43aad ee ku sugan magaalada Kismaayo ayaa weerar ku qaaday xarun weyn oo dawladda isku tagay Imaaraadka Carabtu ay ku leedahay duleedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Xaruntan ayaa lagu kaydinayay dhuxul dhawaan la soo galiyay taas oo la doonayay in loo dhoofgeeyo dalka isku tagay Imaaraadka Carabta. Dawladda isku tagay Imaaraadka Carabta oo si weyn taageero u siisa maamulka Axmed Madoobe ee ka dhisan magaalada Kismaayo ayaa doonaysay in dhuxushani loo dhoofiyo dalkeeda lagana raro dekada magaalada Kismaayo, balse weerarka ciidanka dawladda Soomaaliya ay ku qaadeen xarunta dhuxushaasi lagu kaydinayay ayaa fashiliyay qorshihii dawladda Imaaraadka Carabta iyo Axmed Madoobe ay ku heshiiyeen, isla markaana la doonayay in si sharci darro dhuxushaasi loogu beecgeeyo dalka isku tagay Imaaraadka Carabta. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa qiray in goobta la weeraray dhuxul lagu kaydinayay, balse waxay ka gaabsadeen in ay leedahay dawladda Imaaraadka Carabtu. ciidanka dawladda Soomaaliya gaar ahaan qaybta 43aad ee ka howlgasha deegaanada maamulka Jubbaland khaasatan magaalada Kismaayo ayaa gudaha u galay xaruntaasi lagu kaydinayay dhowrka tan ee dhuxusha ah, isla markaana la doonayay in laga raro dekada magaalada Kismaayo, iyadoo ay qaramada midoobay iyo dawladda Soomaaliya mamnuuceen in Soomaaliya dhuxul laga dhoofiyo ayaa waxa amarkaasi dhagaha ka furaystay maamulka Jubbaland oo si joogta dhuxusha ugu daabula magaalada Abu Dhabi ee dalka isku tagay Imaaraadka Carabta, waxaana arintaasi ka caawinaya maamulka ciidanka dawladda Kenya ee fariisinkoodu uu yahay magaalada Kismaayo. tallaabadaasi oo lagu tilmaamay in ay khatar ku tahay dalka Soomaaliya maadaama arintaasi ay tahay xaalufin dhinaca deegaanka ah. dawladda Soomaaliya waxay dhowr jeer maamulka Jubbaland ee uu horkacayo Axmed Madoobe ugu baaqday inuu joojiyo dhoofinta dhuxusha laga rarayo dekada magaalada Kismaayo, waxaana muddo dheer lagu xamanayay maamulka Axmed Madoobe in uusan joojinin dhoofka dhuxusha ee dekadaasi. qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegtay in dhoofinta dhuxusha ee magaalada Kismaayo ay macaash fara badan ka helaan xoogaga ururka Al-Shabaab oo dagaal kula jira dawladda dhexe Soomaaliya.